dominantly waxay u badnay dhaqaalihii uu ka helay slavery marka ingiriisku markuu industrialize noqday 1850 kalidii waa adduunka oo dhan manufacturing ka maamulay in 1880 dalalka Yurub oo dhan baa noqday industrialize Jarmalka Faransiiska Ruushka wuxuu oo dhan baa noqday marka waxay bilaabeen inay joojiyaan slavery oo yidhaahaan dadku ha ka shaqeeyaan meelaha Afrika ay markaa ka doonayaan raw materialska ama ay ka doonayaan laba sababood baa keenay scrabble-kii ugu horreeyey ama qabsashadii Yurub ay qabsatay Afrika labadaas sababood waxay industrialization waxay u baahdeen raw materials oo nooceeda Afrika laga helo waa cottonka waa waxa weeye rubberka waa palm oilka waa coffee-ga waa kookaha waa a lot of things or tropical environments in Africa. Waxay u baahdeen oo kale maadis meelaha ay u geeyaan marka toddobadii dal 1880s ay fadhiisteen waxay qaybsadeen marka Afrika maabka ay imika aragno ayay sameeyeen deetana muddadii 8 sannadood ayay colonialismkii kale sidaasna marka scrabble-ka hore uu ku dambeeyey kani imika waxa weeye dowladihii hore industrialized iyo kuwo cusub oo iyaguna ama Chinese ama Indian ama Brazilian ama groupskaasa soo baxay oo resourceka Afrika doonaya inay ku amaaraan marka new trend-kani inuu positive yahay iyo Chinese inuu negative yahay waa la ogaan doonaa waxay ku xidhan tahay nooca leadership-ka ay jiraan oo dalalka Afrikaanka wax badan bay matalan Chinese waa ina danayn مدن أيام البيان مدن أيام الديمقراطية وحيد النمو مدى في السياسة العقبة بالوطن وحيد الاشتياق اللي حكومية some of them are dictatorial so there is a new trend in the 21st century وهذا سوء أفريقيا سوء صارت أفريقيا عام بالله أيام السوس وحكوا لنا قاعد نسمع سيرتي ويستمر إن تنظر من cold war وها second world war labadii dale guuleystay Ruushkii iyo Mareykankii ayaa tartamay ilaa 1989 Ruushku dubay deetana waxay dhaliyeen dictatoriyad badan waxyaabo badan oo markaa iyagu waxa la isweydiinayay wuxuu ahaa inaad raacsan tahay Ruushka ama inaad raacsan tahay Mareykanka dimuqraadiyaddu important maaha accountability important maaha nimanka ay ugu jeclaay waxa ka mid ninkii Bongo oo nin aad u xun haddana Mareykanku ugu jeclay waxay dib u dhigeen dimuqraadiyaddii iyo qabadkii iyo developmentkii Afrikaanka waxaa loo bilayo waxyaabaha anyway marka rarsiga waxaa ka jira tartan badan oo beesha dalka iyo waxaas iyo dalalka kale oo ah Chinese-ka Ruushka iyo muxuu ahaa Emirates-ka Turkiga iyo Iraq muxuu ahaa qatar tartan badan oo doonayaan rarsiga inuu noqdo meel qolada wasbaa noqdo meel pro-west inuu noqdo qolada ismuna ay doonayaan waxyaabahaas so taas ayaa waa movement aad u jira u baahan in the information systemku meel walba ku jira media social media so wixii aad doonaysa waa access gareyn kartaa waa eegi kartaa macluumaad anu soo noqdo markaa wixii aad doonay kartaa Africa waxa weeye 1 bilyan iyo wax la jira populationkeedu waa 54 dal Afrikii waxay waa qaarad ballaaran marka la soo koobo sida hal la fahmo afar aqbalood Afrika kaynaga ina xuseeyo waxa la yidhaha Afro-Asia waa geographical term dad Yurubta joogtay waxa la yidhaha Indo-European waa afka Yurub ilaa India laga kani waxa weeye mid Afrika iyo Asia afka kale ee soo raacay waa mid la yidhaha Nile Sahara oo laga helo Sudan muxuu ahaa Chad Jidas laga helo waxaana aad ugu hadlaynayna Southern Sudan dad badan oo ka mid ihina waxay ku hadlaan Kenya sida Luwada sida Kalajanka sida Masai Uganda qaar baa jooga Tanzania qaar baa jooga waa iyaguna qola aad u fudud Nile Sahara between the Nile and the Sahara وقد saddexaad ee aad u weyn waxaa la yidhaha Niger Congo waa labada river oo waaweyn
dadku kala yiraahdo Niger ayuu ka aasaasay laakiin waa afka ugu ballaaran Afrika afar boqol iyo konton qolaa Afrika waxaa laga hadlaa 2,000 oo luqad marka waa waxa baantuuga la yiraahdo marka laga soo qaado Senegal dhanka ilaa South Africa baantuuga ama Niger Congo language luqadda kale ee ugu dhoweyn Afrikaanka Khoisan South Africa maanta waxaa laga hadlaa Namibia iyo Botswana waa luqad leedahay waxay leedahay xaq Zulu-guna uu leeyahay marka afartan luqadood baa Afrika loo qaybiya waxaa doonayna markaa ka hadlata inaga Afro-Asiaanka shan qolay u qaybsamaan Afro-Asiaanka qolada ugu muhiimsan waa qoladii Masaarida ee la yidhaahdo Ancient Egyptian oo xadaarad weyn lahayd dadkii ugu horreeyey wax kastoo cilmiya oo maanta jira ikhtiraacay farkasta loo qoray ikhtiraacay sanad kasta loo tiriyay ikhtiraacay yani Ancient Egyptians Masaarida waa qolo innaga inoo dhow oo afkaas soo gashay qolada labaad ee innagu aan nahay waxa weeye Bushitika iyo dadkii Egyptian hore ee faraacinada ah waa walaal waxa kaloo la walaalaa qolo kaloo la yidhaahdo Semitic waa inagu waxa ka nool jira Carabta ama Ethiopian language Ethiopian Semitic language sida Amhara Tigrayga Guraagaha Iraniga iyo kuwa kaloo anibika jirin oo dhabayo marka Semitic waxa la qabaa isku bariga xal laga hadlo originally ka tagay horba qolada kale soo raacay waxa weeye baarka qolada markii hore North Africa ku noolaa jirtay waqtiyadii hore oo markii dambe Carabtu waqtigii Islaamkii ay buuxaay stareen ama ay meesha ka saartay way ka nool yihiin maanta kuwa Tuarega iyo groups ay kaasayaan waxoogaa badana Nigeria Nigeria waa baarka baarka isku waxay la waraarayeen Bushitika iyo Ancient Egyptianka iyo Semitic qolada kale ee soo raacay waa Chad waa qolada Hawsada la yiraahdo Nigeria isagoo Nigeria ku yaala kana afilo dhowey ku hadlaa iyo Chad anu markaa soo gudbo haddii identification-ka afkeedu uu galo Afro-Asian sababta loo yiraahdo Afro-Asianku Afriku ka yimid waxa weeye xubnaha shanta afee jira afar ka mid ah lagaga hadlaa ka Masaarida Bushitika buuxa Chadika kaasa waxaa jira theory sociology la yidhaahdo theory of diversity dadka qabiil soo qaaday oo tiraahdo intaasoo jilib buu yahay inta jilib haddii meel ku wada koshaw jilibkana meel kale ku nool yahay theoryga diversity wuu odhanaya meesha diversity ku jiro ayaa area of origin ama uu odhanaya the theory of the least move waana buuri baa theory of dadka Latin iyo Portuguese Spanish-ka Roman-ka waxa Faransiiska fogaanayo noqonaya uu buuray so theory-ga Afro-Asiatic waxa jirta journal la yiraahdo Afro-Asiatic language you can access it wax uu sheegaya luqadda waxay tahay waxa lagu soo sifgareeyaa Afro-Asiatic-ka circumcision gudniin qolada la waa gudniinka marka la eego dhinacyada dadka ciyaaraha iyo waxyaabaha waxay leeyihiin jumping clapping ama la tumo malaha Niger Congo booditaan body movement kale ee tagay North America Niger Congo waa dadkii la qaaday ee laga qaaday from Senegal to Angola oo dad badan ahay 100 million 50 million dadkaasi culture Niger Congo waa body movement uu ka duwan ana soo noqon haddii aan Soomaaliga galiyo Bushitiku gudoy now Bushitiku wuxuu originally ka bilaabayaa Highlands maanta meelo badan baa Bushitika laga hadlo waxa ka mid ah Soomaaliya waxa ka mid ah Oromada waxa ka mid ah Afarta waxa ka mid ah Highlandka Ethiopia sidaamadii maalinta dowladda doonaysay meesha waxa ka mid ah Hadaayo Booleyda waxa ka mid ah Konsoyleyda group badan baa Ethiopia Bushitika so waxaad moodaa waxyaabaha cusubay soo kordhayay iminka inta loo qoray inuu keeni doono association Bushitic language waa luqad aad isugu dhow laakiin innaga ayaa ugu soo shaqeeya Soomaaliga ugu soo shaqeeya
kushitigu qarnigii shanaad 5,000 years ago wuxuu inagoy gareeyay agriculture waddankii ugu horreeyay uu ka mid yahay ee afrikaanka agricultureka ugu horreeyay oo la dhaqatada bartay wayna fideen waxay u fideen 3 meelood kuwa noorka u fiday maanta waxa ka nool qolo la yidhaha bayjada oo Suudaan sawaax Suudaan ayaa maanta ka nool oo la yidhaha northern bushit southern bushit ilaa Tanzania degeen ilaa Kenya so inkastoo baantuu imanayo wuxuu liqayaa dad southern bushit innagu waxaynu nahay dad la yidhaha east bushit bushitigu marka Highland hoos loo soo tago ayaynu innagu noqon sidaamada iyo kuwaasaynu isla bushitinahay laakiin innagu waynu soo degaynaa waxaynu noqonaynaa wax la yidhaha lowland east bushit saddexda la yidhaha lowland east bushit waxa weeye Oromada Afarta iyo Soomaali. I'll give you an example of waxaa sidaa loo yahay waanu tegi doonaa yani madhabka la isticmaalayo ninka Oromadii markaa ereyga beerka wuxuu qoranayaa kimber ninka Oromadii wuxuu qoranayaa shimbiro ninka Soomaaliga shimbirko waxaa jira chronological changes xagga chronology-ga Ingiriisku wuxuu leeyahay waxa la yidhaha milk Jarmalku wuxuu leeyahay milk waxaa la yidhahaa keeda ayaa ja iyo sha iyo sa noqota sida kale marka afartu waxay haysaa original waxa bedelay Oromada iyo Soomaalida oo mid ayaa consistent keedu sha change and micnuhuna waxa weeye mar bay ahayd a proto-land mar bay ahayd hal community marka damay kala ahay it's not only that markaad eegtid dhinacyada belief system inagu baynu nahay iyagona qaar baa muslina qaarna waa kirista qaarna waa diinta traditional waxay caabudaan wax la yidhaha sky god waa haddaad Soomaalida eegtid 10 erey oo waa kula diraysa barwaaqo weligeeyo waa cadow waa ereyo sheegaya waxaa it's not necessarily the sky god waa la sameeyo gareeyo ismaan baa midoweysa waxaa jira markaa luqadda sideebaa luqadaha la iskugu xidhaa ee la yidhaaha Oromada iyo Soomaalida iskugu xigta bushitiga waxaa ku soo xiga Afarta waxaa ku xigta kuwa kale oo sidaamada iyo waxaasa waa maxay basiska argumentskaas basic waxa weeye nimanka links waxay soo qaadaan luqadda waxay u qaybiyaan laba luqad la yidhaha cultural iyo basic ka badan ereyo basica oo dadku aanay ergisan pronouns simple words natural words everybody who leeyahay kalmad qorax la yidhaha ama cadeed ama tirada ilaa Afarta waxay soo qaadaan liis boqola oo ereyada aan la ergisan deetana way isbarbar dhigaan waxay soo qaadayaan boqolkaasoo Oroma boqolkaasoo Soomaaliya waxay eegayaan wax la yidhaha cognates waxay sheegarayaan way tirinayaan hadday 50 gaadhaan okay waxay sameeyaan inaan fikrad inaga siiyo sababaha luqadu isku xidhan yihiin basically oo markaa yani sharxan ku sharxi doono Soomaaliga waxa weeye linguistics order waxay slow yihiin basic vocabulary way boqol yihiin labadii boqol bay ee Afarta iyo Soomaalida iyo Oromada isbarbardhigayaan intana waxay eegayaan cognates sida waxay wadaagaan ereyo aan kala duwanayn marka way tirinayaan waxay eegayaan ereyada u dhaxaysa hadday kunta wadaagaan waa isku luqad hadday wax ka badan ka yar wadaagaan waa labada markay kuwa tiriyaan ayay u bedelaan xilli oo odhanayaan muddadaasay kala baxeen intaasay kala maqan yihiin so marka kushitika la eego Soomaalida iyo Oromadu waxay u egyihiin 3,000 sannadood inay kala maqan yihiin af Soomaaligu marka basic listna waxaa la yidhaha Spanish oo waxaa la yidhaha lexico statistic waa la tirinayaa ereyada isla waxaa kaloo halkaa ka helaysaa ereyga qoladani soo qaada and I'll give you a very good example in Somalia
soomaaliduna southkay ka yimaadeen maadaama oromadu ay southern Ethiopia deganay wuxuu linguisticsku waxay dib u riixayaan in originka Soomaalidu ay halka konsada iyo oromadu degan oo ay southern Ethiopia in halkaa ay ka soo fidayaan oo ay imanayaan ilaa halkan aan joogno theory hore ee Lewis oo 1960-70 anthropologist ahaa oo wax qoray iyo nin kaloo Charuli la yidhaah oo Talyaaniga ahaa 1930s waxay isticmaalaan laba source oral tradition iyo wax Arabic ku qoran labadubana may sida linguistics may caddayn dadka historianku marka wax la sheego waxay eegaan waxaas hadduu archaeology ka yimaado waa objective hadduu luqadda qofku wuu sitaa ma bedeli karo waa objective haddaad imika nin dhakhtar u tagtay oo tiraahdo waan xanuunsanaya adiga kuma rumaysanayo wuxuu eegayaa objective evidence wuxuu eegayaa dhiigga wuxuu eegayaa saxaarada wuxuu eegayaa whatever hadday khilaafaan waxaa tiri kuwaas u dhaca soo marka oral traditionku hadday tahay waxaa tiri languagekuna hadduu yahay objective wax kala yidhi archaeologyguna wax kala yidhi waxa la qaadanaya labada so these are concrete things anu soo noqdo markaa Soomaalida for example iyo afarta iyo herminta Soomaaliga waxa ugu hor 2500 buu soo baxaya southku ka soo baxaya qolada ugu dacweyn waxa la yidhaha jiidu waxay degan yihiin qoryool intiina badan baydana maqan waqti dambaad qalatay baa laga yaabaa laakiin waxaad baadhid inta Google garaysid waad heli qoryool waa meelaha ugu rijisan koonfurta Soomaaliya iyaga ayaa ugu dacweyn dhinaca deetana waxaa jira qoran labaad oo soo baxaysa oo Kenya ku noololeyna reindeerle oo aan muslim ahayn marka Soomaali ku hadlayo muslim ahayn degan yahay nadar waxa ku soo xiga qolada saddexaad waxaa la tiriyay Soomaalida koonfurta ku wareertay 4 nuska waxa la yiraahdaa dibi linguistics waxa la yiraahdaa Gabre Tunni Tabare waa qola saddexaad oo gooniya waa language 3 iyagu waxay leeyihiin codad gooniya qolada afraad waa laba qolo isku jirta afraad noqonaysa qolada Mayna iyo Maxaati markaa sharku Mayna iyo Maxaati ereyga la yidhaah maxaa tiri qolada Maygu waa qolada Baydhaba iyo jiida degana Jubbada lagu tilmaamo iyo nalahayn codadka maleqa wuxuu qoranayaa lukun acmala waa sida western ko kala qoranaya ali xamala mamad ku qoran marka wuxuu leeyahay cod markaad qortid waa isla mid laakiin ma laha codadka waxa la marka halkay maxaa tiri oran lahayn may tiri bay so magacii bay lahayd may tiri iyo maxaa tiri waa walaalo codadka ayna karaynin qoroma marka la qoro waa wax la garan karo lukun unay waxaas maaha wax weyn oo luqadu ku tahay iyadii way soo soconayaan marka waxa bilaabaya movement maxaa tiri la yidhaah ayaa wuxuu ka bilaabmaya afgooye meeshan afgooye la yidhaah waa meesha afafka badan ka bilaabmaya afka maxaa tiri ku qoray walaal yar la qoray bariga islaamana noowe marka galadiga timaadid in afgooye waa mamlakad my speaking oo dad badan oo kala duwan maamusha maanta afgooye waxa ku nool 1 milyan barigaano joogi jirayna waxa ku noolaa dadaal marka micnaha afgooye waxa weeye ماشي أفكار كليه كوباي أفكار قاعدة وبنادرجة إيو محاكمة مركا وحى نقدم على سعودية محاكمة مركا يجوك الشباب أي هيران جوكو أي MTB نقص لما أي لما What makes it interesting is that كلامنا إلى border were from Iran to Ras Hafun, to Djibouti, to Ethiopian Somali state, to Somaliland, to Central Somalia. What would it be? Walaba, Mahalama. What's interesting was Kasalega Northern Line. Kuwasi, Wahilei, Ereyakaduan, Wasa.
ereyga kalluun waa Afar originally waa Afar kalluun koonfurtu waxay Malay so you can see that ereyga la yidhaaho muxuu ahaaye casaan waa Afar gaduud baa la yidhaahdaa ereyga la yidhaaho Arabic waa Herare waa ikhigii Carabta habhab waa Herare. What these things tell us is markay Soomaalida northernke biida ku hadasho kuwa biida ku hadla waxba uga dhexeeya wuu doonayaa iyo waxaasa iyo dhacda oo raac noqota wax kala jira. There is no differences in cultural vocabulary basically. iyagu ma madaxa ku haysta kalaanka ee kala qaybinaya halkaa markaad Hiiraan istaagtay ilaa Raas Cabood ilaa Jabuuti ilaa Ethiopia ilaa Somaliland ilaa Central Somalia biidayda laba waxaana iyaga casaan muxuu ahaa kalluun habhab Arabic iyaga. So what this means is markay imanayeen waxay la kulmeen dad Herariina iyo dad Afar way isdhex galeen intii doonaysa inay baadho intay gaadhaysa waynay bannaan tahay waynay joogaan meel walba laakiin waxa aniga ii muuqda early settlementkii northern Somali speaking oo ah kuwa inta biida u badan inay la kulmeen qolada. I'll give you a good example in meesha la deganaa Laasgeel oo Hargeysa archaeologists ayaa baaray 2002 waxay arkeen sawirro dadka hore ee waqtiyadii hore waxbay sawiri jireen noloshooday sawiri jireen. It's very common imika saxaarada waxaa la yidhaahaa waxay ahaan jirtay meel hoola ku dhaqmaan wax lagu beero waayo waxaa jira rock shelters sawiradii ku yaala oo la yidhaha the Bovidian faith way sheegayaan noloshoodii hore. Halkan Laasgeel waa 8,000 ilaa 10,000 sannadood ka hor ayaa dadka meesha jooga lagu archaeologigu soo saaray dadkaasi loobay inay caabudayaan wey loodan maaha le geesaha yaryar waa looda West Africa geesaha looda dadku xagga aragga way ka farweyn yihiin kuwan. But what's important is in 8,000 10,000 years ago meeshan la joogay oo meeshan aan iyadoo maran looyna inagu waxaan qabnaa meeshayna inagu naaleen oo aan inagu ugu horreyn laakiin meesha waxay jira interaction badan. Aniga waxaa ii muuqda in early Somali northern dialectka biida ee labada iyo kalluunka iyo casaanka iyo waxaa la soo baxay inay leeyihiin interaction with Afar and Boha and Herarese ayaa muuqda oo markaa ninka qofka yidhaa Arabiqadu waa ikhigii Carabta waa Herar waa huyaamay. So there are many things languages can tell. Waxay sheegayaan inta aad la kulantay haddaad wax ku oranaysa. Iminka Zulugu oo South Africa waxay ku hadlaan Xhosa waxay leeyihiin wax Xhosa waxay ka qaateen kuwii ay liqeen ee meesha degan oo qoysa. Anyway, what seems to be in waxa theory Lewis iyo Cheruli oo isticmaalay qoraallo af Carabiya iyo muxuu ahaayeen documentaries iyo oral traditions waxa linguisticskiiba argumentka qalibay iyaga theoryga wuxuu ahaa Soomaalidu waxay ka timiday ma Arabta halkan bay kasoo tallowday Oromaa deganay way riixeen labada dhibar Bantu baa deganaa waa la riixeen waxaasoo dhan waxay linguistics ku leeyahay dad language kana ku hadalay ku keenaysa stages na wuu soo maray waxaa jira Somali 2 waxaa jira classical Somali. I'll give you another example. Ereyga wazne in Cushitic waa waa wazne sidaamada iyo waa wazne waa zaabule Somali zima zaadaas waay bay noqonaysaa imika ninka jiidu ku qoranaya weyne why wadnihii buu leeyahay waa weyne marka mayda ay soo gaadho uu fiil noqonay. So the D we have has two explanations. It came either from a Z or from a D. But you can reconstruct from the south that Zida was named what Eastern Cushitic
word for heart. Sidamada waa wazni. Jiiduhu waa weyne waa wide. So it's Z ayaa wide noqonaysa haddana D. So you have elements of that. Anyway, so the argument of language was more objective. What I'm going to do is oral tradition to problems. Oral tradition was a khususiyat tarikh. Every human being له حقوق. لكن oral tradition ومعناها لأيقو وإن لكرسارة كنت يبان. مثلا إثيوبيا مركي أي قبصدين عن حارضو أي تقريبا كقبصدين in the 13th century وحنا Solomonic dynasty وحنا mythology وحنا Menelik وحتى علي King Solomon بقركي إثيوبيا أيام علي بقركي بقى يهودا علي وإسلامتي شيبة أيام تبتوي سري أقوم كسوق ورسوسيال الحكومة إثيوبيا تتناول بينه تتناول اللي بعدش هو تقريبا هو حرام أي ممكن إلى أين هو كوي تناول وحين كلام تقريبا كانوا عاي أم حاردي ما ماشي لكن mythology إليه أننا أبدو إدوارنا أو Old Testament أو كا أي مكان أوره أنا صار أقول oral tradition وصدق هو حبولية أو weakness time chronology ما وقت ما بشيء الوقت مثلا هذا اللي بقول نقطتين وحيابها تتكشيان time ماله chronological anything and time chronological الله إنه problem وقت ماشي وحكرونا لهين ولا بدلك easily بقى بدلك راو ومثلا العرب الدولة لها والله أمره يوسف كتير والله أمره التاريخ ولا ليه قال سنة واحدة so oral tradition صدق بقوله سنة وإيكوريا وإن of scholar كرسارة من كذي history كذا كمان كرسونان كذي صدق بقوله سنة واحدة within 300 years وحوات استعمال now so وحقتكم طبعا ما كان هو ما بقشي وحلاقي لنا التاريخ كويس تاريخ هو وحقتين هو evidence وأنا إلا أديا إنه يهاي وحصل marka qofkii markuu helo waa inuu tawixii eega inuu wax saxay haduu ku kalsoon yahay waa inuu interpret karay uu yiraahdo waxaan uu yahay sidaa iyo sidaa oo sidaa iyo sidaa soo saameeyay laakiin wuxuu halkaa kuma joogayo mar walba uu isbedelaya waayo qalab cusub iyo aragti cusub ay nafsu u bedelay ama fikradii hore la soo tuuray waxa loo arkaya waa waxa la yiraahdo review of the literature dadka warqad qoraysa oo doonaysa inay wax analyze karaysa waxa lagu leeyahay الهرطة يا وريا وحقوري وح قفكي وحقوري هو يكذب بحاجة محو كتب محو إيه محو حاجة في المسكري وقت يكون وراء واحد مركب any evidence you have now is liable to constant change واحد من أورال tradition بنقول عليه ماشي بالفعل I'll give you a good example السايد وقت لوضع عادي استعمال وراء لوضع أما نايلوت كتبت كليراي صدر السودان يوم مركو حقبان mythology أورالية إلهي بقى موسو تجيه له أور فرشكو مركا إلهي بقى والله هذا يدروبه وقرقري كاني والله هذا يقول الله بقى نمسو تجيه يتنوي كاسامي so أنا technology so that's their understanding of how they got كتلا نايلوتيكا هو واحد وين لوضع وين دخل من بعد طبعا كل ما تقول لكن وحرية هي كبيسة مش كله اللي هي مش هي صوت كويس لكن مش تقول حقوقي هي social value ما بيكون حليه so in southern Sudan كتل هو أما نايلوتيك culture هو واحد سن محامي سيد anyway وحنا ولا إني أبغى أخذ ورقة سكارة يعني نروح يوم بغرفة نحكي لكن واحد دوني يقولنا الشيخو argument كي لويس يبقوها ترولي واحد دمية language سواء هو دمية وحوي ومور objective وحيكون بدري oral traditions هي عرض كفوان مركز كابو وحبنا كلا عقود أو وحبت كجرني وحيوين اللي قاعد يسمى for example in Allah kingdom عرضت وحقوريسي
specifically inay sheegaan bay ahayd dadkii meesha ku noolaa inagu waanu nahay inaga ahayd laakiin documentationkii alxabash aad uga sheegay way carabtu markaa may kala garanayeen inaga iyo ethoobiyaanka may kala garanayeen yani kuwa dadka muslima iyo waxaas so basically oral traditionka marka history la qorayo archaeology-ga iyo language-ka ayaa more objective iyo waxa ritanka oo isaguna waqti ku xiran wax kastoo la qorayay sababuu leeyahay qof anigu waan ilaale ujeedaan leeyahay waxaan doonayaa inaad wax yaroo macluumaad oo soomaaliga igu kordhiyo si aan wax loo eega anigaas baa ka fiican marka motive baa qof kastoo wax qorayna so marka dadka wax qoraya xilli bay wax qorayaan xilligaana afkaar gaara waqtigii victorian iraha la yidhaahay isticmaalka مثلا واحد جري افريكان بينا تاريخ تاريخ ده وحلا يوروبيان افريقيا جو انا I'll give you one example كباية one example نين شنو أشياء بالله عبد الله أحمد بنادي وأنا أحمد بقرة نين شنو أشياء بالله نيجيريا أو أدو يا كانوا وقرايا هي كلاس مقارنة literature مركب حلودي جاي بوك بالله عن Heart of Darkness وبوك لك قرية كونغو وحضر أفريقيا كذا بيجري لبلا لا ينبع حاجة تبلغش نكرر عنا إلى بعض نكو مركو كورس يوحد ما يصير أيو graduate program كوريا book and things fall apart completely وكهذا يا equals لبلا لين قدام بيا أيو كهذا يا so you see that difference قالوا in the Victorian era واحد قبتي أفريقيان واحد قرن مرها إيه كان تاريخ مرها وحلا درس يوانين كيوروبيان أفريقيا جو ممكن قربين 1960 أي scholars كأفريقيان تسوي بعدين تنزانيا يتجن يجي بقى تاريخ دي أفريقيان كي بلعبي مو بقرن ليرات emerging themes of Africa وقرن يجعلوا رجي أفراميريكان ممرك جامعة ولا نتكلم African studies waxay bilaabeen inay group gareeyaan inay lahaayeen civilizations waxaasa aad loo daaway imika waa laga gudbayaa oo gender iyo identity iyo wax kala loo noqonaya laakiin si ay u group gareeyaan waxaas important marka Afrikada waxa ku dhacay nasiibtako oo European-ka image-ka ayay ka xumeen laba sababood baa arkay mid waa slavery boqol sanadood oo ay ku justify gareynayeen caruurihii kobcinayaan iyo waxbarayaan oo Afrikaanku yahay qof saddex caruur oo wax la baray iyo waqtigii colonialism labada iraba oo racism-ka iyo waxaasoo dhani ay noqotay ideology European-ku ay ku justify gareeyaan waxay sameeyeen imika waxaan ognahay race-kii inaanu jirin adduunka inuu jiro only one race in Afrikana laga fahmo any of you can access Africa inay tahay meesha bani aadamka ka bilaabmay 5 milyan oo sanadood ilaa 1 milyan bani aadamka qoriinkiisu Afrika u buuxay even 60 kun oo sanadood buu haddana qofkii ugu dambeeyay Homo sapien Afrika ka tagay uu halkeenan baabalmandab ka baxay uu tagay Southeast Asia iyo Groenland iyo tagay European what proof there not only the origin of humanity, but also the origin of Homo sapiens, modern people in it together. Color huwa kushaqala environment. The more you go to colder climates, you're more likely to be light skinned. The more darker, so theory you can read that. DNA is the way to move crazy. Africa has the largest diversity of DNA. If you access it in the social media, you can get that. يعني race خليه يطلق وكم part خليه هذا هو بدله. It's not a different race. يوم حكوا explain كذي نكلم ذو نوع إن النوع وهاي ترى أبي ما ينكرهان ترى وهم تقوم وذو بعد something like that. So that why شيكاو ولا يصير ترى بالنوع بعض ما ينلها من السام بعض ولا من هان بعض غلط سبيل إنكار بعض عليه. So waxay jiray theory the colonial period leeyahay hamid myth oo inaga inta loo wadaleeyahay baanaga loo dhowday laakiin ku kala weyn iga way wax badan baan idin markaa inaan wax baan soo
وحي سؤالها وقت قواتيه نادي المسيح يعني محمد نوح علي سيد الله بدو المسيح قابق وصوت قابي ما دام يسكن هاي القضية isagaan sii doonaa markaasi hadduu su-aal haye hadduu comment ku dareeyaba almaasid دكتور محمد نوح وسود وينيا ومعلكي وسكوت أبو وفوتي بروفيسور سليمان ومعلكي وأرتقي وأوتيس كبير سنة والله إيش بدأت أو وحبر الشلة أركسين نمبر 1 كوا وحبر الشلة بالآن نمبر 1 هاونو يقولي ونو يقولي وكابرد ويتابع بمشى وكاسنا طلع سكوه ده كيلو سكوه والمغرب وأنا ويديني مثلا أكون مع تيجي حتى حاجة وقضاء أمرتو أجي يسوي أين نقلناي كشيت اليوم يوها أين نقلناي كوكو حاجة وكان عربية أفافكا لكن أنا حسابا مرتين وحن إيمو قطع نيجي تجلس كا تدخل ولا يدخل بسوي حقنا صوت بنا كتر مجاعة كتر حق مجاعة كعرام سو أما مجاعة حق مجاعة زادو وحقي على إني تدخل دكان فتوح الحبش مركي لسنين دكان لقبسني أو تدخل قبسنين dadka qabsaday magacdooda ku sheegaysa inay leeyihiin oromo ee ayna wax kale مثلا قد بوسي كو كابو راهو يوالو قبصده فنتري وي واعيدا قيمتي دولك قبسني كدو وادوكا بوسينا وا قبصده وادو قبصده حاجه بينا انكو كاكه مثلا عيسى هو كلام قلاب waxaa jira ciidanka sahanka ahayd oo wardiid baa loogu jiray iyaga warkay keeni jiray waxaa kaloo jira horroone kula la yidhaaho horroone waa qasabka alawal wey horroone ogaadeen oo kale kolkaan leehay masale waa ogaadeen waa kuwii soo ogaanay ciidankii xaggaa ka galay waa kuwii wax soo ogaanayay xagga kale isaaka والرونها هو الواسطة الأول هو اليوم وحكوا حاجة كان حاجة صوت كذا ومحكمته وقوي عيدا الصواب الصراط محكمة تسالي وكان حاجة والسجل يوم كذا وكان كان مقعة لأنه سميريا والسجل هو إعلام وقوي وركوالا خفر من إبراهيم كل واحد يقول والسجل أنا هاك مقالة كهرباء أنا مجهزين وكان إيجو وسو مجهزين ويا مجهزين وسو جهزين سو مجهزين ويا من ريحان وكان كان إيجو ومنسى وعيسى ورحمة هذا كلا وفريسة وكويا فريسين كمان مستوي وكان مقالة وكان إيجو وهو كان إنسان إذا نير بسني وهرو صادق جيتلا يبقى حاجة كذا تبغى ربنا قال لك كسر كلام لكن حاجة وهاي تنسى بسني يبي هاي تنسى بسني وكذا كوسيو كلامك كابونا كذا وارد كوسينا وارد وينفنتري يا وينفنتري وهذا كذا وجهتك يوم سوى الجسيات مرحبا كاسرو نصيحة قال حاجة سياسة وسياسية وها ودنا وطنية وردية وها صار كل شيء أنا وهوية وعمل عيدا وفتوى الحبشية تطوير كلامي
كجرسا إنا مكالي بنسو كريسيا فنجلس كام حتى نرمي لو حتى نقول العشرين أو كهذا كلام سمير يا سمير فرقوا لا تورو مني والله بقول حساب أنت يمشي Kajianku proses ini masih poin dia untuk proses berjuang ya. Wah, oke baik. Masih dona kau dengan sini na. Oh masih na, boh. Agak setuju. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البطل مع دوري حمد الضوافر لنا ومعلمين تردي سليمان مرتي البي في ذا أولاً معلمين تلو تلبرعية بروفيسور سليمان بن حسني محمد أكيد البيت على العقل يقول لك سسول أنا سسول بعد دور يوم ليلة حتوسي dadka ama golweyn iyo qoryoole iyo jiiddu waxay degtaa from qoryoole ilaa Portugal waxay degaan Maraawe ilaa meel kaasa golweyn marka waxa weeyaan waa dadka had iyo jeer la yidhaahdo riyaha waaweyn bay kartaan marka golweyn baan macallin ka ahaa 1975 دكتور سعيد بن نجوم سعيد أحمد والهض ما شاء الله بارك الله مركب وحوية 1977 بندون محمدين وموجيو معلميتي غير شاطئ وقت كي وضياش اللي كانت تقول ياسين اللي ذاك لبي تقول معلم كتشوفلي لبي وضياش وحنو كذا السد يلا ما تر وضي وقبل يدا التنين أفر بقولوا سنة كانش مركب راديو بتشو الله يحسن أحمد حسن دوتي وأنا نسمعت الدعاء مركب سنة أفرت البشر هذا هي الدوبة اللي قبل يدي هناك الصومالية وأفر بقولوا سنة بقول سنة وحزون سكن لما ذا الكلاس يقول لي بيتي وحي هاي ورمو أما الصومالية يقولوا يا قالوا حقنا الصومالي وتقرن حقنا ورمضان وحكم لها ترى وقتها أنا هنا أنا أقول أيام فوقا ما دام معلم كان وأنا أبغى كلاس بس إذا تقدر ما في أبغى أسكت ترجع ده وكذا لما سدي أفو جهة سلام كنا نكو كنا نلعب كنا نسد وأسماري ولا جدنا وحب قولنا يا ما تلعب هذا ما تلعب أنت وأنا بدأوا بدل لو كنت لدمية نتيجته بركي دبنا وحنا لو نعلمين تلا نعلم سدانا تلي سدانية بالي سداد بلوط المقنع وحدت كاسي واحد كل سواء سبيت بركة وحولنا محمد محمد هذا بتاع سنة الذي حق الله وجهه كفع وينا سكني إلى أما أنا جبت اليوم تدريب فرقية كولج الصومالية هورا أرضي وهذا بوريني كذي مركز فرقية إلى بنارة إلى الصومالية إنت أصلا صومالي أبدا يوم اللون يوم مركز وحوية يعني ورمضة بالفرق بين كل الدول اللي بتجي توصلها مش كنا وزارة وحفرشة أيضا وقع بسببها كرجحتها يتكسر أيوة كابل كذا بيت في الأرض سجست نايت بوكس في الناس وحياها إنه كان كذا مقوى حتى تعرف أنت يعني بدون ما الوضع لكن الصومالي جاب باي أفر بقول وسنة واحد أوريتي سوي سنة بس سوي سنة الصومالي مركب
waa kii iska habeena laba su'aalood baan siin doonaa oo qofku labada su'aasha kaliya aan loo sheego marka waa israacinaa dadku way badiyeen ma garan karno deesaan oo doori karno qofka su'aasha hal daqiiqo iyo ka badiyeen markaas marka labada dee nasiib bata xagga macalinta ka bilowday iska عادي نفسها دول عشان دنيا أذكر سيادو بسم الله الرحمن الرحيم. لكم ورسول السلام يا أولاد سلوين يا دمياء جماعة عمود دكتور محمد نوح علي وخبير السوريانا يا دكتور آية كنت وقت قابل دوني أنا حد سؤاله ويديو أكثرها وحويان ذكر لي هذا كل شيء runtii wuxuu weeyaan sidii ognahay waxa ka dhaxeeya mas'ala aqbaatay xagga knowledge ka marka la yiraahdo waxa ka dhaxeeya waxyaabo badan sida uu khabiirka hadii sheegayna dadka kale marka baramada la yiraahdo magaciya iyo marka Soomaaliga la yiraahdo magaca iyo marka afarta la yiraahdo ku magaciya runtii waxa la kasaynaysay la fahmaya marka su'aasheedu waxay tahay ma jirtay maamul dadkaasi ku shitiku marka taariikhaan la eego ay wadaagi jireen maxay se tahay saamaynta iminka dadka ku shitiku uu ku yeelan karo isbeddelka socda geeska aad iyo aad baad mahadsantahay horta taariikhda ku shitiku wax badan baa saameeyey markii hore ku shitiku hal group oo ah حضارتنا وراها ويجعل الجناح إثيوبيا ولا قرني كوان ما لبس بقولوس نكور أيا دينا أيامنا ماشي سوق ترى لينا هي وحكي سوق تريدرز ساتلانيس أيام سوق وكان أحسن واحد دقيقة واحد دقيقة كشيء لبدك ما يسمعين لبدك موي كان بوسريا state by this malaria Aksum. In the long run, that key Sukataraka yimite, and that key pushitiki, look at the super Sanaya Leda Geese. Geese command Waha Lainaha, Tigrega, Amharada, Waha. Maka foundation Amharadu, Wa, that key yimite, your pushitiki Vasana. Tigrega was. Maka was Yabana, Waholo. So, in Casto, Ethio-Semitic later, or even later, Semitic of Allah, Lakin, Adi, who egi, Uma Eka Semitic Yoha, why some strategy, push it to pay most of it. Whatever Amharadu, Eastern push it to pay that. Tigray will open the time, Agao, Central push it. Wow, Hayaka, Lekari, the Gay, wow, that democratic security and health. But demographic change, your population change. marka ila kuwa ila hanjiran xadaaradii ugu horeeyay aksumkii faacta waa midday kaga duwan yihiin sawaaxiliga waa la dominateeyay sawaaxiliga isla baantuugii baa xoog yeeshay aba banaadiri kaga Soomaali waayo xamar ilaa marka ilaa waxan dad kawsara oo Soomaalidii gudaha ahayd ayaa dadkii imanaya traderska isdhexgaleen way kala guursadeen marka luqad سواحلي ولا يناول قدي كوستر لا يا صبحي حكي لنا صبح يا نقطة إلى بنادري وخو وقوة وحياة بس اللايت هو هذا أرى كلام النقطة ذلك يصير إنه يتربي سكتور سؤال وان chance masih na suara kawan proses bawah asing sahaja na dari yang terus ini سؤال كابن بويدينا يا بروفيسور أو أبو كابن وحوي مركز لقي ما التاريخ اللي هو سوالي الصوفة اللي سلوك ربعه ما عن سومالي مركز سومالي سأل لقول ما الشيء كان تاني يوم وقته بالعمل وحوي ما عن سومالي مركز وجوه الرئيس قرار من لينا ابن السعيد oo markatay ayaa sheegay in
قول الصومالي كونتم فيليج ايلاند ومركي يقول رئيس القرآن والله ونكاس القرآن وقت كان لنا ميدل ايجيسكا dad muslina oo scholarisa ayaa wax walba lagu madalay ninka aad loo yaqaan waa ibn Battuta iyo sodon dalbuta oo inaga zeeyay xamar dawlad labada uu soo qoray Battuta ninka ibn Sa'id 12th century ayuu markaa waxa jira civilization sawaaxiliga la sheegayo xamar baa laga ku jiray wixii ka horreeyay qarnigii 13 ba sawaaxiligu هو سكوريا إلى تنزانيا أنت هو راح عمل هذا وكان سكرين كنا فكوي قف كلابات الشيء سومالا ونين بقرة أو إثيوبيا ولينا يس ها 1412 أيو هس لو ترى يا واحد كتير سومالي بيجي تذكر إنجليز سومالي the word Somali وأنا أتذكرين هو 1412 نيكو حلنا يس زاد وبقر كيتو ومكي هو رسالة شيء in terms of documentation ده هو حبيب من الصومالي وأورال tradition وقولوا الصومال ومحل explanation prologue لكن in terms of documentation لبضع هي basic و 12th century ابن سعيد أو مكة و identify كرينيا Content village of Somalia. Iyo Yasha or Pokorki, 15th century, or Iyo Hamagure or Shania, Kaba Salamote, one another, or Dola Amana, Parshe, Valotini, or how could you take that away one different creation? Somalia. نصيحة تعبنا تعالوا بحيجي عن تلاقي كله إسراع سؤالها أنا كتير صدق سؤال ما سرعنا بسم الله الحمد لله دكتور بوما سيهاي كان بعد عمل سؤال مقابسنا وما تصنت هاي وحويدين لها قبرضا لبضا شغالة وما شربته وذات سومالية تاجن بس كاش إيمان وحلاص بمية دتك ولا دكت أو تمني قرر ديجل بريك وديجل بريك وكذا أفكوي لنا هذا بعد ما لك هذا وكذا هذا هو اسمه ديجل بريك سومالي محاجة وكذا مركا إنتاج مرة سومالي بيشوف مقولة مسوا خلق أي مقولة أو لغة ذكر الدول وايد ما تفرح الله وما صنع سؤال شلون راح السلام يا بروفيسور دكتور محمد علي هل سؤال بدل الوديسي لكن هل سؤال بدل سؤال شبه سوماليدو ملاذا هاي باترنت وحده أما أب ملاذا غير على الصوص كل يكسر الشيء وغير كل هو ده نراي ملاذا هاي سومالي قولنا شباب كله وتك شيء سومالي سدحات واحد قولنا الجيران قوليها سومالي سدحات وحوي وتوني وكرر وقليل وتبرر جروبس كاسي وحيليه نقدر لكان تنوع الكوهات أو أي استعمال أفماي هذا خصوصاً في قبلنا الماي وحنا يسوي ليه قبلية أبغى يصدق قبل صدق قبل إنديجينس كوي صدق لك عفوا بكوهات وهو واحد بيجي فيها ويش يجري يعني مركب قوي ninka karihi isagoo afkiisii ku hadla ama sunnigu ayuu markuu meesha ku nool yahay afmaydu isticmaala marka waa baay'in ka karihu waa sida sunnigu waa sida labaduu googayay laakiin markay labada ragad ku nool yihiin mayga dominant ma may tibaa ila afku ila dheer so mayga isticmaala dadna wasna xaalada dadna xaalada u dhashay dadna حاجة استعمال
because of all the integrated problem, language of trade, language of interaction, وأساسه. أريجا سومالي وحياة بدن وين الريكتان evidence. كان لنا هاي لقد مركب الشيء مش شيء صعب. لقد هو شيء يستند كالدول أو لقد قاتل أو أنا من السميني ماشي كيما يعني ولا سؤال. سيدا يجلس سيدا خلاص كافي بيزك أنا I'll give you a good example in the south. إنه هو حلنا هاي قبيل ماشي هتنتهي في القرآن ما دي حسب فاكر وين قبيل وراها متبادلة وين الورطة ما الورطة قبيل كل شقية corporate ethics وسكوه ليا وراها لما قالوا ماشي هتنزل وتعصيبين مركا قبيل هو protection ولا ما يدو important ما هقولها وحي important resource إلا شيء they don't care ماشي هو ماشي هتنزل مرة نروح على الويدين يا باشا، أفكوا قرآن شيء يستقرين من الصومالي، مركوا قوانتون تقولين وعلى باشا، إذا ما تقدر تسوي، إلا جدا الويدين، هذا قال تقاني، قال الويدين، هذا قوم، إذا حكم كل صونا له أفكار، لا وجه يوحى شيء إنسان، مفهوم. لكن ما يكون ترتولي، وحلولية وحد منتخب، وحد هيسنون ما شيء وضد ديمقراطي، وكله إذا عندهم كده صدق ورمضوا وحلال على السيستم عدي مرة قرأت آيات القرآن ما هيك واحد قصد يدق واسط يلو تقال تيليدي يقو براي تيسوق واحد وكان نظام بيقال جنسيس وفرشمن إلى صف إلى سيريا إلى جامعة لحدي سنضوط بين القدس ولا عتيري حيبان نقولس ولو حرارين وحد نقولس ودي وين وطريق ساسي كان جرو important ما هقولها وح important ما عليه تاور تاعته وما قاعد عظيم والله سهل بحنا مركوا سيدا وشيء داعية لما نسوي له كذا دكتور محمد ما صدق دكتور محمد الشيء لكن سؤال ما كنت تروح يقول سأقرأ وحدث هو الشيء قبل ما تيجي من الناس اللي بريء قلت يجي برا مريكان بيا ودورة الدراسة في البوست جراduate سؤال ده واحد اللي بقول صدق بقوله سيمان هي ليش أو كاتب في ليفربول يو ضمن هو كلامه مخالف هايلو كعان كنا هاخذ واحد لها في مدرسة عليه إنه نك يوم حمل في مدرسة السؤال مصومالي ما قش بسلامتي أنا أقول الصبح يا شاعر والله أنا سلام ياسين وأذهب بست شوية الله عن سيدنا محمد الدكتور وياسين خالد في هونك أقصد كعان كنا وكش بسلام بالله ولد كذا لما كي بقول بحر والسكور والعكس السكور كنا نلعب بوكي وضيقي marka waxa nafku yaakay wana dhabeed la fuulay waxa yiraahdo wadabay wadamada uma dhalalo fuulay uma dhalalo masan ma wana halkeed ku dhalatay masan marka jiga wadaba wuxuu xaq tigday leeyaysa misaaga booran hatta kana wuxuu wanda kiraas way ma uu tawassulta qolada لا تقدر تقول يا باشا ما كنت انا بس انا شغال يبقى مرة يا كان محمد سوق كريس مرة هذا سوق ما سؤال التعزيز بركورنا حتى اي مكان تشوف قفوا الى ان تكتبوا كوكي يمين هذوك لا لفت سياسه يا كما شايف سكرتير اليوم انا ما قال هو وتبدو مرمرة مركز تمر كيس قاعد انا ما كثير شيء اما والله بس قاعد ناوي ولا قال يا دكتور ما صرت قال وانا في جواب سايكولوجي تيشر انا هانتي موتيفيشن كان يا قالوا حتى المساجد في الجمعه والمربع لك يسمونها بالدنيا وقعديه القران استعمل السنه ما بوصل السوي ديري لكن حاجه ما السوي يعاون موتيفيشن هذا في السنه قال يا ما صرت فتوالت وغير مكه
waxaan rajaynaynaa daktarku rajagayaa bisha shanta insha allah alla nabada ugu geeyo laakiin badanna waa dad qaali haddii sahran u sheegi sanadka ku damanaya la sheekaabi ka baxaysa marka waa macana aad iyo aad ayaan ka mahadcelinaynaa cabdinaasir iyo deeriye iyo ciidankiisada furaha shugul afraadka iyo intiina timid waa mahadsantihiin mudanayaal iyo marmooyin insha allah mar kale misu samaynaa biidnillah aad iyo aad